dhalinyaro isxilqaantay ayaa maanta dharka ciida u qaybisay ku dhawaad 150 oo isugu jira caruur iyo dadka baahiyaha gaarka ah qaba. Dadkani oo danyar ah ayaa ka kooban 100 caruur ah iyo sidoo kale 30 ka mid ah dadka baahiyaha gaarka ah qaba. Gudoomiyaha Mama Uday Foundation Mudane Maxamed Amiin Cabdirasaaq Aadan Macalimo ayaa sheegay in dharkan ay la baxeen dad muxsiniin ah. Sidoo kale waxa uu ku baaqay in la caawiyo dadka danta yar. taariikhdu waxay ku beegan tahay 7 bisha 7 amba July 2022 waxa maalin qura amba 2 maalmood amba maalin ka harsan ciida amba Ciidul Adha waxaan halkan maanta ku qaybin doonaa hadii aan walaalaha Mama Uday Foundation dhar aan ugu talagalnay inay ku ciideystaan caruurta agoonta ah iyo danyarta ee madrasada Daarul Muttaqiin ee iskuulka Mama Uday ee hoos yimaada. waxaan rajaynaynaa insha Allah ugu yaraan waa 100 arday oo gabdho iyo wiilal isugu jira dharkooda ciida waad u jeedin waxaan siin doonaa haduu Ilaahay raado insha Allah si ay ugu ciideystaan ayaan u siin doonaa walaalaha soo sadaqaystay oo ajar iyo xasanaad aan la soo koobi karin Ilaahay xaqiisa aan uga rajaynayna waxa kamid ah Mama Maryana kamid ah Mama Maryan Jarmal iyo sidoo kale Mama Habibo Goley iyo Mama Raaxaruun Mama Uday iyo sidoo kale Mama Ummu Ikhlaas Fartuun Cismaan Shukri Xasan Leila Xasan Najma Xasan Faisal Ahmed iyo Mama Mano Mama Dahabo Ikran Ahmed Ifrah Ahmed Jawahir Muxuddin Naciimo Nuur Samsam Hiba Fardowsa Geelle Xaawo Shiino Maclimad Hinda Deeqa Ibrahim Qalanjo Saynab Xasan Sacdiya Daynile Nasra Ibrahim Maana Ibrahim iyo Ummu Ikhlaas waa 32 qofood oo rag iyo dumar isugu jira. Sidoo kale goobta waxaa ka hadlay qaar ka mid ah dadkii la gaarsiiyay dharka ciida. ciid walba waa naga farxiseen sadaqadiina waa na soo gaartay qaar badan caafimaad Allah idin siiyo meelaad jeceshihiin wax qaar qaba Allah idin ka siiyo muraadaadkiina Allah sahlo waalidiintiina Allah cafiyo. Ma ahan markii ugu horeysay oo ay ciidsiin u sameeyaan walaalaha gargaarka agoonta ee Mama Uday Foundation. Dadkan isugu jira danyar agoon iyo dadka qaba baahiyaha gaarka ah. Maxamed Muuse Abtow, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, magaalada Muqdisho.